hagaaji markhaatiga. waxaad tahay saxaabiyad ila sawira mowqifkan cajiibka ah, qalbigaaga iyo ruuxdaadana kula noolow. ila sawiro adiga oo la fadhiyo nebiga sallallahu calayhi wasallam, indhahaagana aa ku indhakuulanayso aragtida wejigiisa quruxda badan, albaabada qalbigaagana u furaayo si aad u maqasho xadiiskiisa. sababtoo ah midka wax jecel qofka uu jecel yahay wuxuu ku dhagaystaa qalbiga ee dhegta kuma dhagaysto. janaaso ayaa waxaa la soo mariyay nebiga agtiisa, saxaabaduna janaasadaasi waxa ay ku ammaanayeen wanaag iyo khayr, iyaga oo leh meydkan wuxuu ahaa saaxiib wanaagsan iyo zawj la jecel yahay iyo ubad baari ah iyo daris wanaagsan. masaakiinta ayuu wax siin jiray, dadka deymaha lagu leeyahayna wuu caawin jiray, dareenka dadkana wuu ilaalin jiray. kitaabka qur-aanka ayuu saaxiib la ahaa, masaajidkana wax badan ayuu u socon jiray. nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa markaasi waxa uu yidhi way u waajibtay. waqti yar kadib janaaso kale ayaa waxaa la soo mariyay nebiga agtiisa, taasoo saxaabada ay ku sheegayeen xumaan sida inay lahaayeen oo kale. meydkan wuxuu ahaa saaxiib khiyaano badan, zawj aan wanaagsanayn iyo wiil caasi ah iyo daris aan laga ammaan heli jirin. masaakiintana ma siin jirin waxba, xumaantiisa ayuu ku dhaawici jiray dadka u dhow. qur'aankana wuu ka tegay, lugihiisana ma aqoonin waddada loo maro masaajidka. nebiga ayaa markaasi waxa uu yidhi way u waajibtay. saxaabada ayaa markaasi nebiga waxay weydiiyeen waxa waajibay. waxa uuna ku yidhi kii hore waxaa ku sheegteen wanaag, jannada ayaana u waajibtay. kii dambena waxaa ku sheegteen xumaan, naarta ayaana u waajibtay. adinka waxaad tihiin markhaatiga alle ee dhulkan. waxaasoo dhan waa maqashay, waadna ogaatay in maalin uun garbaha lagugu qaadi doono adigoo lagu wado qabrigaaga. dadka la dhaqmayso maanta waa markhaatiga alle ee dhulkan, ee hagaaji markhaatigaaga oo noqo gabar baariyad ah si markaa dhimato ay waalidka u dhahaan alle ha u naxariisto. la dhaqankeenna ayay wanaajisay, codkeeda ayay hoos u dhigi jirtay, walaalaheedna waxay kula tartami jirtay raaligelinteenna. noqo xaas wanaagsan si markaa dhimato uu ninkaaga u dhaho alle ha u naxariisto. waxay ii jeclaatay sida ruuxdeeda oo kale, sharafteydana way ilaalisay, gurigaygana way nuurisay. ilaahow qabrigeeda uga dhig beer ka mid ah beeraha jannada. noqo hooyo wanaagsan si markaa dhimato ay ilmahaaga u dhahaan alle ha u naxariisto. waxay ahayd hooyo naxariis badan oo qalbi wanaagsan. cumrigeeda wuxuu u dhammaaday annaga darteen, nafteeda ayay noo hurtay, salaadana wayna amartay, soonkana waynagu tarbiyeysay, qur'aankana wayna xifdisiisay. noqo abbaayo wanaagsan si markaa dhimato ay walaalaha u dhahaan ilaahow waxayna xiriirisay markaan goynay, waxna wayna siisay markaan waxayna u diidnay. waxaan khayr ahayn kuma aynan maqlin, kumana aynan arag. noqo xaas wanaagsan si markaa dhimato ay sodohda u dhahdo alle ha u naxariisto. waxay ii ahayd gabadhayda, dareenkaygana way ilaalisay, wiilkaygana waxay ugu saaciday baarinimadayda. noqo sodoh wanaagsan si markaa dhimato ay gabadhaada u tiraahdo waxay ii ahayd hooyo oo kale, waxay ii noqotay garab markaan daciifay, wiilkeedana waxay amartay inuu si wanaagsan iila dhaqmo. noqo daris wanaagsan si dariskaaday u tiraahdo markaa dhimato ilaahow waxay ii ahayd walaal, xilliyada adagna waxay ii ahayd wehel. sirteenna ayay qarisay, sharafteenana kuma ay xadgudbin. waxay noo keeni jirtay cuntada, wayna ina soo booqan jirtay. noqo saaxiib wanaagsan si markaa dhimato ay saaxiibtaa u tiraahdo ilaahow waxay ii ahayd naxariis aad i siisay. adiga ayay kaa xasuusin jirtay, xuskaagana way igu boorin jirtay. waxay ii hadiyeysay kitaab qur'aan ah, sirtaydana ma iisan faafin. haddii aan qalloocdana si wanaagsan ayay ii toosin jirtay. ilaahayow jannada guri uga dhis. saxaabiyadayda markhaatiga wanaaji, waxaad tahay saxaabiyad. saxaabiyadayda markhaatiga wanaaji, waxaad tahay saxaabiyad.